garow habeenkii markaan u soo hoyanay odag waxaa loo qaaday boosaaso iyo halkaas iyo dhaawacii istaalka daaweyntiisa anuguna waxaan ku haray garow markaan ku haray marka wixii madaxa iga jira waxaan bartay shaqo iyo sacrifice iyo bala ma ogtahay garow dhan baan ku warwareegay assessment baan sameeyay iskuulo malaha nolosha dadku iska yar tahay muxuu ahaa markaas kaalo boqol degan oo wax bilbilowday oo waxaa jooga xaamud iyo ninkii la oran jiray aadan sheekh doon waxaa jooga muxuu ahaayey wiilka kale xildhibaanka cabdiweli xismo afartaas beeladaa joogta wiilashaasaa jooga waxaa kaloo jira urur la yidhaha taas oo bulqaas markaas iyaguna qol markaas wax bilbilaabay waxaa jooga cabaas gacmo gaab oo iyaguna soorso bilaabay saddexdaas urur baa gobolada waqooyi bari oo dhankaas joogta bas annagana magacaygii baan watay xaggaan ka ahayn shaqo waxa halkaan aan ka furno bas marka iyagu inta badan kala shaqaan ahayn waa kala duwan dad waxaan wada shaqeeya oo yaqaana yacni meesha loo socdo oo tashada oo aan naqaano cabaas iyo soors waxay ka shaqeyn jireen jidadkay rehabilitation ku sameyn jireen rehabilitation baa jidadka lagu sameyn jiray oo la kabkabi jiray taas wuxuu ahaa qoladii la oran jiray bulqaas waxay ka shaqeyn jireen meeshan xirta ii sheeg muxuu ahaayey bay la shaqeyn jireen waxbarashadooda iyo halkaas ay ku xiraayeen ayaguna dariiqadaas ay ahaayeen oo ma soo dhexgeli jirin magaalada annagana marka waxaan bilaabay wixii aniga aan aqaanay anuu maadaama aan educationist ahaa aan muxuu ahaayey waxbarashadii dumarkaan bilaabay markaas waxaan barnay iskuulkii literacy waxaan ku faraxsanahay maanta dadka garowa jooga ugu yaraan dhalinyarada hay-adaha ka shaqeeya oo dhan iyo dadka businesska ah oo dhan iyo macallimiinta iyo qaar wasiiro ah waa dadkaan ba'yata garow ugu bilaabay iskuul baan furnay halkaas controlka halkiisa ku yaalay waxaan bilownay xanaano waxaan bilownay iskuul muxuu ahaa dugsi dhex ama markaas darwiish baa furnaa oo hoose dhex ah waxaan bilownay dugsi meelahan kale ku yaal san hoose dhex ah waxaan bilownay vocational training haweenka sidii muxuu dambeelihii wixii bay sameyn jireen waxaa la bari jiray farta waxaa la bari jiray halqaankii wixii saan u joognay meelo kale aan karaysanay dhowr santar ah baan karaysanay markii dambe hay-ad baa noo dhistay meel noo dhistay oo macnaha vocational training aan u guurno anagoo sidaas ah markaas Puntland iyo ma dhalan dadku marka life waxay ku jireen survival ah oo ah qofkii wax yar sameyn kara qofkii muxuu ahaay caafimaad ka shaqeyn kara waxaa timid Unison baa timid Unison baa markaas waxay naga caawisay maamulo yaryar maamuladii yaryar ay naga caawisay maamulka marka maamulka kale ma gaarin laakiin wuxuu ka shaqeynayay ilaa iyo muxuu ahaay nolosha deegaankaas marka halkaas uu ka shaqeyn jiray waa la iska fiicnaa marka the justice systemka jiro kaliya waxay ahayd odayaasha haddii baabuurta lacagta inta laga soo raro boosaaso la keeno garow ama gaalkacyo u socdo haddii baabuur inta la istaajiyo kartoon laga degsado waxaa la jira xagee looga degsado suna chief agteeda waa la yaqaanaa cidda degsatay waa la yaqaanaa halkaasaa loo raacan jiray macnaha marka ma dhici jirin crime badan ma dhici jirin crime waxaa kaloo jira SSDF oo markaas aan laba garab wali u kala jabin oo macnaha Cabdullaahi Yuusuf uu hayo iyaduna waxaa weeye dhinaca muxuu ahaayey difaac iyo dhinaca dhaqaalaha dekada kaliya labadaas dhinacood bay ka shaqeyn jireen laakiin dadka kale iyo noloshooda iyo waxaas isku xirnaan waxaa kaloo jiray shirarkii loo aadi jiray Addis Ababa iyo loo aadi jiray oo Soomaaliya la isugu keeni jiray shirarkaasi marka la aadayana garabka siyaasiga ah baa dadka qorqori jiray waxaa la qori jiray muxuu ahaayey gaalkacyo intaas ka timaado boosas intaas ka timaado markaas Soomaaliya sana waa USP iyo waa naga maamul baxsan yihiin kuma jiraan xataa council-ladan la dhisay waxa way goboladan kaliya ahaayeen marka soo ka ajin soo ka arki doonto waxa waaye dhowrka qof aan nahay waa sawirka sababa aan socon waqtiyadaas weey aniga dhaga weyne iyo ana ugaas xasan iyo halkaas shirarka saasan ku aadi jirnay waxa aadi jirnay anoo council ah oo ah waqooyi bari markaan tagna halkaas waana ka badan yahay diyaarada waxa jira la dhigi jiray Unison oo gadaal inta laga soo buuxiyo haddii 5 qof lagu talagalay in raacdo 200 qof orod ku soo raacayaan
waxaa naga yaabay Ethiopiankii ummadda Ilaahay mideeda kale waxa la dhihi jiray qoladan halkan hala dejiyo qoladan halkan hala dejiyo waxay u qabeen inaan isdirirayno mase halkaanoo ay ka socdaan saraakiishii dagaalada hogaaminaysay iyo kuwii xamar hogaaminayay baa xabadka inta isa saaro oo isla qosla halkan jaad wada fariista waana la ka yaabay marka waxaa dadka kan xageey sidee loo qaadaa aan muxuu ahaay meel loo raacaan lahayn sidaas ahayd dagaal asaas shirarka waad aadi jirnay shirarka waad iska burburi jireen markasta annaga markaan soo noqonay oo halkaan aan goboladan aan nimid yacni weli waxa adkayd dowladda Soomaaliya waa adkaatay inay dhisanto 7 sano baan joognaa annaga laftirkeena isku socod ma jirin waxa kala jabay garabkii muxuu SSDF baa kala jabay oo waxay kala noqday garab maxaa abshir Allah u naxariiso hogaamiyo iyo garab Allah u naxariiso Cabdullaahi hogaamiyo kaayos badan baa bilowday bari waxay bilowday yacni inay maamul yacni ka ballaaran kan gobolkan councilka ah oo maamul bari region amal ah ay samayso baa bilowday oo haddii dekada iyo maamulka dhinacaas u go'aan macnaha goboladan kaleeto yacni dhaqaalahooda iyo noloshooda waa iska adkaanaysa markaas Allah u naxariiso dad badan baa joogay waxaa la dhihi jiray war sidee yeelnaa war maxaan samaynaa war sidaan si mataa marka waxaa la bilaabay shirar maxaan samaynaa shirkaas bari baa socday shirar kala socday wala isku markii qardhaa dhacay meel badan baa la isugu yimid waxaa la yiri we need amni waa haysanaa xoogaa horumar yar waa haysanaa dadka dibadda waxyaabaha soo qoran iskuulada iyo caafimaadka iyo meelo yar waxaas ku filan yihiin budget muxuu ahaa badan ma jiro waxaa la maxaan samaynaa what's next dowladda Soomaaliyeed ma soo socoto Puntland xaalkeedu waa saas maxaan samaynaa xagee aadnaa marka waxba la isku keenkeen gobolada waqooyi bari hal sameeyo Bandar Qaasim hal sameeyo Uduglaan hal sameeyo walba waxaas hadda magac baa la isku keenkeen adoo finalkii in loo baahan yahay maamul namideeya oo yacni muxuu ahaayay awood isku furan tahay ka baahi badan baahidu ay ka baxsan tahay magaalooyinka maxaa yeelay garowga maamulkii ka jiray ma gaari jirin eel iyo muxuu ahaa maamul ahaan inay dad ganacsataa xeebahaas oo dhan baa buumin ahaa markaas oo waxaa jiray argoosatada la dhoofin jiray magaalooyinka badda hadda habeenkii fiirs waxaa mooyi jiray New York iyo baa mooyi jiray maraakiibta saa u safan oo jariifka ah oo habeenkii waxaad is leedahay magaalooyinka adduunka soo guuray annaga waxa weeye kuwa iyagu xoogaa argoostadaas dhoofin jireen xaaba iyo eel iyo garaacad iyo 100 meelood oo kale waxay ahayn buumin oo dadku aadi jireen oo shaxaad u doonan jireen gaalkacyo kale waxay ahayd meel badeecada lagu kala bedesho oo badeecada xamar ka timaada iyo mid waqooyi ka timaada iyo cusbada Itoobiya u socota iyo muxuu ahaay kontrabaan iyo wax walba meesha lagu dejiyay ahaan jiray oo iyadana xoogaa yar suuq yar baa ka jiray marka waxaa la waxaas oo dhan ma soqeynaya marka halkaas waxaan ku soo gaarnay baahidii maamuladii iyo muxuu ahaay laga qabay inaan ka gudubno oo markaas marka Puntland loo abaabulay Puntland la dhisin xilliyada hore waxa ay ku dhacay dagaalkii markii horena idinku sababta u ahaa in naftarka loo soo qaado dagaalkii Akhwaanka sidoo uu saameeyay gobolkan xilli adagna uu ku soo aaday oo dadku ay wali ay samaaga dhigan dagaalkaas runtii wuxuu ahaa dagaalkii ugu yacni urmuruga badnaa sababtoo ah dadkii waxay ka soo tageen waxay haysteen waxay ka soo tageen guryahoodii hantidoodii xoolahoodii waxyaabaha ay la yaabeen baa waxay ahayd ilaa marka waxa loo wada dagaalamay dawladnimo iyo dawlad Soomaaliyeed dawladdan waa nagu xuntahay mid kale oo ka fiican aan keensano waxaan xasuustaa barxaddan garow niman ay gowraceen wiilashoodii ma maanta muxuu ahaayeen xilli xun bay noqotay wiilashoodii dileen يعني قار ودنه استاجين حدين والله العظيم محن حسوسته هبين دجال وقال كدعي قال كعيا دجال كدعي ودنا عسلين وكسعله وبرحد جرو انت اللي يسوي يمين نون هذا مقعس وقال له وين حناقي وحناقي وصا انت ودع نفتك دعدي عيل درتيس حناق ودنه استاجين يعني dadku saas ahaayeen dadku waxay ahaayeen dad yar oo isjecel noloshu iska adkayd waagaas
dagaalkii dhibaatuu keenay markii wadaadadan markii hore wixii loogu wareejinayay waxay ahayd cadaalad baa laga raadinayay waxaa dhacday cadaaladii laga raadin waa markii movementigu dumarku bilowday movementigu intii ka horreysay dumarku waxay ahaayeen noloshay la tacaalayeen waxaa bilowday movementigii la oran jiray Hoover Rangers wuxuu ku bilowday boosaaso wadaadadii baa qabsaday dekada ilaa waa niman wuxuu aruursanaya lacagtoodii waxay diideen lacagtii lagu bixin jiray booliiska suuqa ilaasha suuqii waxaa ka bilowday robot ka bilowday waxaa bilowday guryaha habeenkii la isku soo dhaco waxaa bilowday hooyada suuqa caanaha ka soo gadata caanaha in laga dafo wadankan ammaan baa lagu joogo waxaa bilowday yacni walwal iyo cabsi baa bilowday dumarkii waa kaceen waxay u tageen qolada dekada haysata wadaadada waxay yiraahdeen waxaan rabnaa wiilashii noo ilaalin jiray suuqa oo habeenkii roondada noo aadi jiray inaa wax naga siisaan waxaa le ma jirto dumarkii oo dhan waa iswada aruursadeen maqrib iyo maqshib bay isaga yeerteen waxay seexdeen dekada horteeda hogaamiyaal bay samaysteen guddoomiyay samaysteen ku-xigeen bay samaysteen xoghay hufan cartan Hoover Rangers baa loo baxshay marka baabuur baa la soo qaatay dekada marka waxaa geli jira baabuurta waaweyn oo dhan wax ka soo qaadaysa waa la isku goglay habeenkii saa markii la isku goglay oo la seexday baabuurka subax xagee maraabo 5,000 dumar haba meesha jiifta dantu waxay kala marka in la hadlo maxaa rabtaa dimaankoodii oo dhan la weydiiyo waxay yiraahdeen waxaan rabnaa dhaqaale joogto oo bil walba waxaan rabnaa bay dhaheen ciidan intaas oo 100 loo qoro waxaan rabnaa muxuu ahaayay hogaanka saas ku bilowday dhaqaalihiisii wixiisii lacagtooda miiska loo saaro markaas waxaa bilowday wiilashii ilaalin jiray iyo dumar baawur saaran soo garanaysaa waan u maleynaya inta baawur cabdibilayaal la saaro ammaanka ilaalin jiray markaas waxaa la waayay qalin saa meel u yaal qof xagga u sii jeediyo ammaankeedii la sugo halkaasna movementigii dumarka ka bilowday movementigii ku xigay waxay ahaayeen markii heshiisiinayeen qardho muxuu ahaayay labada garab oo SSTF shirkaas waxa weeye adigu wuxuu nahaa yacni dhowr bilood baa loo fadhiyay waxay ahayd in haddii muxuu ahaa in inta hal garab lagu soo cesho muxuu ahaayay lagu wareejiyo Cabdullaahi Yuusuf haddii lagu wareejiyo maxamed abshir lagu wareejiyo adigu waa shaqayn weyd waxay noqotay shaqo waa Cabdirasaaq Xaaji Xuseen la keenay dhexdhexaadnimo yacni in labada dhinac inta laga qaado kaligiis loo dhiibo waata irintiina fashilantay oo suurtagal weyday markii dambe waxay iska noqdeen oo lagu heshiiyay oo lagu dhexdhexaadiyay oo dumar iyo oday iyo sheekh iyo shariif oo dhan lagu hagaajiyay inay labadaas garab noqdaan laba garab caafimaad qabta yacni laakiin aan colaad iyo dagaal ka dhaxayn marka shirarka la aadayo group baa waxaa soo dirsan jiray maxamed abshir group waxaa soo dirsan jiray Cabdullaahi Yuusuf almost wuxuu ku xiriirkiisa dhinaciisa wuxuu u badnaa dhinacii dagaalada iyo xoreynta iyo raaxada u badnaa محمد نحو بدنا مور administration وبدنا وحو فدي دينعا كلا بفدي عافماد باساس لو قبي